Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta. Marar badan adoo ka fiirsan wax walba ma tiraahdaa waxaadan rabin ma samaysaa yacni adoo raali ka ahayn si aad dadka kale u qancisid. Marar badan ma ka shalaysaa go'aamo aad gaadhay. Haddaba wax yar istaag, xooji xiriirka hoose ee naftaada, yacni dib iskugu laabo oo baro sidii aad go'aamo wax ku ool ah u gaari lahayd. Haddaba 6 qodob ayaan kuu sheegayo meel ku qoro. 1. Waqti badan ku bixi arrimaha muhiimka kuu ah. Dhinacyo badan ka eeg inta aadan go'aan gaarin. Marka waxa aad waqti gelisid, waxaa kor u kacaya qiimaha shaygaas uu kula leeyahay, waxaana kuu cadaanaya in aad dooratay go'aankii saxda ahaa. 2. Ogolow in aadan ogeyn halka uu go'aankaagu ku dambayn doono. Macnaha haddii aad ku qaldantid ama ku fashilantid, ha quusan, dib u eeg, fiiri halka ay wax ka qaldameen, qiro inuusan jirin qof kaamil ah. Bini'aadamka oo dhan waxa uu saaxiib u yahay qalad. 3. Isweydii maxaad dooran lahayd dadka kale haddaysan kala jeclayn. Taas waxaan ula jeedaa dadka badankiisa go'aamadooda waxay ku dhisaan aragtida dadka kale. Wixii dan kuu ah, adiga unbaa og ee samee wixii Rabbi raali ka yahay, naftaadana ku qanacsan tahay, adigana dan kuu ah. 4. Muhiim ma aha in 24 saac go'aan iyo fikir ku jirtid. Naftaada u tur, ha isdaalin, degdeg ee iska ilaali. Waqti sii go'aamadaada aad gaadhay oo si fiican ha u fulaan. 5. Isku day in aad hirgelisid go'aamada aad gaadhay. Waa muhiim inaysan kaa noqon hadal oo keliya, laakiin waxaa lagaa rabaa in aad ka shaqaysiisid sidii aad u bilaabi lahayd talada aad gaadhay. 6. Shaki ma kaaga jiraa go'aamada aad gaadhay? Dooro kan aad is leedahay mustaqbalka fog ayuu ku anfacayaa. Haddaba cashar ka qaado wixii ku soo maray oo go'aan yeelo.